habeenkii arooskoodii markay aqal galeen nasiibka uma saamixin inuu waagu u baryo ayagoo noolno. geerida ayaa ku soo xaadirtay oo waa dhinteen labadii caruus. subaxiina waxaa sogootiyey oo qabrigoodii u sogootiyey bilowga aakhiro kumaankum qof. waa qiso murugo badan oo ka dhacday dalka Masar, tuulo ku taalla galbeedkiisa. labadan caruus waxay dhinteen habeenkii aqalgalkooda. gurigoodii ayaa laga soo saaray ayagoo meyd ah, wiilkii iyo gabadhii. dadkii magaalada ku noolaa ayaa subaxdii sogootiyey labadan caruus. habeenkii markii la aqalgeeyey ayagoo faraxsan ayaa laga soo tegay. subaxii markuu waaga baryey ayaa waalidkii labada caruus waxay damceen inay u tagaan si ay farxadda ula qaybsadaan, tahaniyadna ay u geeyaan. laakiin waxayse ka filanayn meesha ayaa ka qabsaday. gurigii bay gargaraaceen. si kastay u garaaceen, qof ka fura iyo jawaabtoona waa waayeen. kadib waxaa dhacday inay jebiyaan gurigii albaabkiisi. markii albaabka la jebiyey, qolkii hurdadana la galay, ayaa waxaa la arkay labadii caruus oo meyd ah. gurigana uu ka soo urayo gaas iyo waxaad moodid qiic. kadibna waxaa la gaarsiiyey booliskii arrintaas. baaritaan la sameeyeyna waxaa la ogaaday neef qabatow ku dhacay inay la dhinteen. halkaas ayay uga tageen adduunyadii ay rabeen inay ku sii noolaadaan. hase yeeshee ma garanaysid adigu geerida intay kuu soo jirto. laga yaabaa adoo faraxsan habeenkii arooskaada, habeenka habeennada ugu qaalisan, inay geeridu ku haleesho. waxaa la doonayaa adoo suuban oo wanaagsan oo saalix ah oo xaqa ilaahay ilaaliyey, xaqa addoommahana ilaaliyey, inay geeridu kugu imaato. waayo saacad walba iyo daqiiqad walbay kugu imaan kartaa. dhammaantina ilaahay ha noo hagaajiyo khaatumada. labadaa caruusna waxaa leenahay sida ilaahay adduunka uga farxiyey aakhirana ha uga farxiyo.